kulankan ay ku yeesheen ururka iskaashatooyinka dhismaha magaalada muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay dhulka iskaashatooyinka ee kaawooyinkaasi oo ku yaala waqooyiga magaalada muqdisho oo ay boob ku hayaan sida ay sheegeen dad ganacsato ah waxayna tilmaameen dhulkaasi in ay leeyihiin iskaashatooyinka iyadoo dad ganacsato ah ay doonayaan inay ku dhistaan oo ay boobaan dhulkaasi waxayna ka digeen iskaashatooyinka in lagu kadsoomin dhulkaasi oo ay leeyihiin iskaashatooyinka dhagaxa qaar ka mid ah iskaashatooyinka ayaa ka hadlay boobka lagu hayo dhulkaasi waxayna ka dalbadeen dowladda federaalk soomaaliya inay soo farageliso bismillah dowladda waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta dowladda ama baarlamaanka ku jira ama wasiir ha noqdaan hay'adaha caalamiga dadka danyarta ee la dhacay waa in laga soo gaaraa waa dadka qaxooti waa wada jeeda dadka ka duwana ma ina qaxooti dadka war ilmaha waxbarasho ma haystaan mid maadiya mid diinan ma haystaan war dabkaay waa duuban yahay war intaasoo ummadda u jeegday oo maahan fadhida haddii la guuraya dad intaasi ka wada wakiil yihiin yaa dowla u naqaysiin waxaan halkaan uga jeedinaynaa ugana codsanaynaa haddayna ogyihiin wayna ogyihiin haddaynana ogayna inayna ogaadaan nagana qabtaan haddii waddanku ay cadaalad ay ka rabaan horay madaxay u ahaayeen haddana madaxnimay raadinayaan ayagaa yaqaana waxay xukumi doonaan haddii shicibka la gumaaday oo shicib meesha ka jirin oo waxbarasho ka jirin ay ilmahayna ay beerka dhulka ku hayaan halkan waxa maala jirnana la ka duugay wax naga qabaan oo dambaana aysan jirin Soomaalinimadayna wadad baan naga gashay ma Soomaali baan ahayn ma wadankaan u dhaco wadadka wadanka u dhashay hadaan ka tawfiiqda Allah na waafajiyo wax ma aqaana Ilaahay wax yaqaano intaana dhamahay ayaa aan arqodi jiray ilaa aan kan ayaa ku korsahayay qoraya afka leega soo gashay waxaan dhigay qof ay u tirsan yihiin male waxa waaye xooga sii jiray ma wax naga qaban kara haday jiraan inay naga qabtaan aan raali ka nahay waxaan ku sii dir lahaay ugu fayaaba lahaa afgembi waxaa lagu bilaabay dawladda Xasan Sheekh Caakaawiinkood xoog lagu la wareegay ilaa haddana maalintii ka dambaysa waxa waaye raac subay ma ayo dhulbooba waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya oo ugu weeyay ra'iisul wasaaraha gaarsiinta madaxweynaha gareeqaanka guud duqa magaalada inta xilka haysa qaranka Soomaaliya waxa waaye meesha la isku haysto meesha dalka laga dhiso dalka ayada laga dhiso nimana waxay yiraahdeen dhulkaan noolayayna dhulka hadda uu noolyahay hal loo noolayay warshada ku yahay wax walba ku yahay haddii la noolayayna anaga noolayayna cidna noolayayso ma jiro marka nimanka ganacsatada dhulboobka wata nimanka ciidanka ay adeegsanayaan waxaan rabnaa in la ka qabto wassalaamu calaykum هذا المركع مقاعد الساعة بسم الله الرحمن الرحيم حي محمد جمعاني أنا قول لي وحال مغلق ما مر والبهنتي ذي نحوق جين إذا كان أنا قول بحق الله رفض عوض الله صحيح ورفض سنباني ماذا وحن هيسم الهنتي ذي وانا قلوا له وحن تنيجي تطي gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed Cabdi Cismaan Shuuriye ayaa ka warbixiyay xaaladda dhulka isagoo tilmaamay in dadka doonaya inay boobaan dhulkaasi ay ka waantoobaan wuxuuna dhanka kale dowladda federaalk Soomaaliya ka codsaday in arrintaasi ay ilgaara u eegaan isla markaana ay u heeliyaan dadka masaakiinta ah ee laga boobaya dhulkooda Muuse Cismaan waxaan rabnaa qaranku inuu noo heeliyo ummadda inuu heeliyo dadka dhibanayaalka inuu u heeliyo inuusan noqon qof walba qofkii lacag leh dalka inuu xukumo nimanka lacagta leh oo biyajka samaysan oo dhibaatada samaynaya dowladnimadayba dib ku yihiinba ayagaa raba dalka inay xukumaan oo dowlad ka noqon laakiin anu ma rabno waxaan rabaa shacab loo taliya canshuur bixi inaan noqon dowladdu inay intaas kala fahamto ay u hiilayso shacabkeeda u hiilayso oysan u hiilin ninka shilinka haysta oo ummadda inuu ku baabi'iyo rabo ama dalka inuu ku baabi'iyo rabo waa mahadsantihiin waxaan rabnaa dadkaas inaan lacag la iska gelin meeshaas waxaan kusoo gabagayaa shirkadda dahabshiil
shirkad la yaqaan waa shirkad aan ku ognahay in aan la wadahayn ba nin leeyahay nin shaqsi leeyahay man abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed